maalintan shidadeeda haddaan alla ku badbaadin maalin fudud maaha waayo dee afkaynu ka leenahay waa maaline 50 kun oo sannadood bay u dhigantaa afku maynu ka leenahay waa maalin qiyaame laakiin maalintaasi xisaabta ay joogto ilaahay quraanka wuxuu leeyahay ta'ruju al-malaa'ikatu war-ruuhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sana ayat taasal u tilmaamaya ayat kalena ilaahay wuxuu ku tilmaamaya maxay 50000 sana mufasiriinta badba waxay dhahdaa maalintani waa 50 kun oo sannadood haddana 50 kun sannadood maalmaheedu maalintiiba waa 1000 sannadood mufasiriinta badba saa yidhaahdaa ayan kaanat maalintani waa maalin ka dheer maalmaha caadiga ah maalin kumaankum sannadooda weeyaan innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiba baa ilaahay leeyahay iyagu waxay u arkayaan inay dhowdahay iyagu waxay u arkayaan maxay inay fog tahay annaguna waxaan u aragnaa baa ilaahay leeyahay maalintan inay dhowday qiyaamo waa maalin dhow baa ilaahay leeyahay laakiin bini aadamku dee marka aakhira looga sheekeeyo wuxuu isirahaa waqtaad haysataa iyo dee qiyaamuhu baryahan ma jiro wardiga qiyaamahagu wuxuu dhacayaa maalintay naftu kaa baxdo dadka kale qiyaamahooda waxba kaama gelin adiga su'aasha iyo cadaabta iyo jannada iyo wax waliba waxay kuu bilaabmayaan maalinta naftu kaa baxdo adigu sugi maysid dadka kale inta la soo halaagayo haddaba qiyaamaha iyo dhibta jirta qiyaamaha maalinta qiyaame iyo burburka dunidan ku dhacaya iyo sida ilaahay dadka u soo bixin doono iyo xashriga iyo miisaanka iyo xisaabta iyo siraadka iyo jannada iyo naarta mawaaqif tiro badan weeyaan qiyaamaha iyo dhibta jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa in badan buu kaga warramay qof kasta oo muslim oo fahmi kara qur-aanku wuxuu sheegayaana wuxuu helayaa warkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maalintaa ka warramaya oo xaqiiqo ka sheegaya kow ilaaha weyn baa wuxuu ku sifeeyey inay maalin weyntay maalintani alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuun liyawmin cadiim yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin waa maalin weyn baa ilaahay ku tilmaamaya yani dadku yaqiinsanayn ama malaynaynin annahum mabcuuhuun in la soo bixin doono liyawmin cadiim maalin weyn in la soo bixin doono maalintaa waxaa kaloo ilaahay ku sifeeyey subxaanahu wa tacaala maalin culus haqiila inay tahay ina haaulaa'i yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowman haqiila ilaahay wuxuu leeyay kuwan gaaleed ama waxay jecel yihiin tan degdegta badan leh adduunka waxaanay ka tegayaan baa ilaahay leeyay yowman haqiila maalin culus waxaa kaloo ilaahay maalintaa uu ku tilmaamay maalin adag inay tahay casiir fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina gayru yasiir waa maalin adag baa ilaahay yidhi oo gaalada marnaba aanu fududayn idan maalintan rabu samaawaati waalardi oo sifaynaya wuxuu leeyay waa maalin weyn waa maalin culus waa maalin adag ayaa ilaahay ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay sifaynayaa maalintan baqaha iyo cabsida bini aadamka haysta inuu wareeri doono wax badanba mararka qaarkood aanu kala garan doonin waxaa rabbi ku tilmaamaya ta uur kale in ilmuu ka soo dhici doono waxaa rabbi ku tilmaamaya ta nuujinaysa inay ilmaha hilmaami doonto oo ilaabi doonto ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum ina zalzalata saacati shayun cadiim wardadow waa rabbigiin ka dhowrsada baa ilaahay leeyahy waayo ina zalzalata saacati shayun cadiim qiyaama gelgelinkiisu waa wax weyn baa ilaahay yidhi yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat watadacu kullu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wama hum bisukaara walakina cadaab allahi shadiid waa maalin aad arkaysa baa ilaahay leeyahy
tii nuujinaysay waxay nuujinaysay ay hilmaami doonto tii uurka lahayd uurku ay tuuri doonto dadku aad mooddo inay sakhraansan yihiin baa ilaahay leeyahy ilaahay baa wuxuu leeyahy watara annaasa sukaara waxaad arkaysaa dadka oo sukaara ah sakhraansan wamaa hum bisukaaraa ilaahay buu leeyahy mana aha waxay cabbeen dadku sakhraamay dad wax cabbay oo saa ku sakhraansan ma aha haddana waa la sakhraansan yihi oo maxaa sakhraamayey shiddat lhawl dhibta weynideeda walaakina cadaab allahi shadiid baa ilahay yidhi ilaahay cadaabkiisa ayaa adag saa daraaddeed baqe cabsi bini aadamku uu cabsanayo iyo baqaha maalintaa jooga waa kaa uu dadku sakhraamayaan waa ka uu nebi maxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ambiyadu oo dadka hormoodkooda ahaa inay ku koobmi doonaan nafsi tayda bes inay ku koobmi doonaan ilaa iyo marka u dambaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la soo gaadho ana laha uu yidhaahdo waa maalin ayuu nebigu ku tilmaamayaa baqa daraaddeed kuwa dulmiga dunida ku sameeya indhahoodu aanay libiqsanin ishu iskuma qabsoonto naxdin daraaddeed isha wuu kala hayaa walaa taxsabanna allaha gaafilan cama yacmalu aldaalimuun inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar ha u malayn baa ilaahay leeyahay inuu rabbi moogan yahay waxa ay daalimiintu samaynayaan ilaahay wuxuu leeyahy ma moogani ee waxaan dib ugu dhigay maalin indhuhu ay engegaan oo aanay libiqsanin baa ilaahay leeyahy ayaan abaalmarkooda dib ugu dhigay muhطiciina muqnicii ru'uusihim laa yartaddu ilayhim tarfuhum waafidatuhum hawaa walxaal ay yihiin baa ilaahay leeyahy kuwo muhطiciina musriciin kuwo degdegaya marka loo yeedho madaxa kor u taagaya ishoodu aanay dib u soo noqonaynin baa rabbi leeyahy caqlina aanu kuba jirin afidatuhum hawaa baa ilaahay leeyahy caqligu waa madhan yihi qalbigii wax lagu garan jiray waa madhan yahay baa rabbi ku tilmaamaya maalintan dhibta jirta ilaahay wuxuu leeyahy kuwa daalimiinta ah bini aadamku markuu naxo waxaynu naqaanaa in wadnuu xoog u shaqeeyo gariiro dhugdhugtiisa aad magaa ka maqasho maalintaa halkan laabta ka dhugdhuglayn maayee dhugdhugtiisa xanjarada hunguriga halkan baa laga maqli doonaa buu nebigu ayuu qur-aanku tilmaamaya waandirhum yowma alaazifa id alquluubu lada alxanaaj uga dig maalinta dhow baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala id alquluubu lada alxanaajir markay qalbiyadu wadnuhu halkan ka dhugdhugleeyay kaadimiin iyagoo haddana saakitiina laa yatakalamuun qofna aanu hadlaynin aamusan ilaahay wuxuu ku sifaynayaa maalintan maalin indhaha iyo qalbigu midna aanu sugmaynin yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar quluubun yowmaidin waajifa absaaruha khaashica rabbi wuxuu leeyahay maalintan qalbiyadu waa waajif waa khaa'ifiin waa kuwa cabsanaya waa kuwa hanfariirsan oo baqaya waa kuwa argagaxsan indhahooduna waa khaashica waa kuwa dullaysan ayaa ilaahay ku tilmaamaya indhahooda sifooyinka alla ka bixiyey mar waxaa la tilmaamay inay engegan yihiin oo aanay libiqsanaynin mar waxaa la tilmaamay inay kor eegayaanuun mar waxaa la tilmaamay oo aan ishoodu waa ku soo noqonaynin darafku soo noqonayn mar waxaa la tilmaamay inay kuwa dullaysan yihiin waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamaya waa maalin carruurta ay cirowda baa ilaahay yidhi fakayfa tattaquun war saydin uga cabsan doontaan baa ilaahay leeyahay ilaahay cadaabkiisa in kafartum yowman yajcalu lwildaana shiiba fakayfa tattaquuna yowman yacni maalin saydin uga cabsanaysaan haddaa gaalowdaan maalintaa saa uga cabsan doontaan waa maalin ka yeesha carruurta shiiban ee ashyab kuwa ciroobay alsamaa'u munfatirun bih kaana wacduhu mafcuula waxaa nusuusta qaar ku soo aroortay aadam inta la yidhaahdo ibcath bactha ahli nnaar kuwa naarta gelaya aadanow soo saar dabeetana waxaa la odhanayaa waxaad soo saartaa
كونكي قف بسقال بقول يسقال يسقاشن صبحي marka saa la yiraahdo bay caruurtu ciroobaysaa baa xadiisku tilmaamaya waqtigaasi ayaa waqtiga caruuri ay ciroobayso wamaalin aanu jiri doonin xidhiidhka qaraabanimo iyo tolnimo iyo walaalnimo iyo aabanimo iyo hooyo iyo xidid iyo xigaaltoona wamaalin aanu jiri doonin ilaahay wuxuu leeyahay faidaa nufikha fi suur فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون هذه سورة الله أفوفه مركز سورة الله أفوفه بإلهي لي فلا أنساب بينهم نصب كدحية مجره ويل إيا والالطونة مجران إيا واحد وهشتاتونة ولا يتساءلون بإلهي لي وحبل سويدين معي بل قفك نفتي سمويا نعد كلا الدنين معي ومالن قفku ka carari doono dadka intii xigaalkii xigta oo hayda ugu dhaweey walaal hooyo aabo saaxiib kula dhalay فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قيامه هدو دعبا إلهي ليه ومالنو كعرر دونو قفكو ولالكي يا هويدي يا أبيه يا توقبي يا عرورتي سو كعرر دونو ومالنا نو عد نبا سكايا ورقا وعرر دونو وايو لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قف والبما انت تيسا مشغول السيبو إلهي لي سبحانه وتعالى بلد يسقى هيستا كفلا عد وحكما كافي كري يسقى مشغولة آية كريلة يحلي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق آية كريلة يحلي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولهم ينصرون إلهي وحلي ورددو ورمالين كدور صدا كعب صدا مالين أنكو وحدالي وحدالي وحبو قبان كرين كل دالينا عدي دشياني وحبطاري كرين وهو يا إلهي يبوهي سوى النبا إلهي لأنه مالين تاني إيمان يسو وحدابي وديار قرو واركدور صدا مالين أنا فينا النفس وحوها ينبار رب التلمام سبحانه وتعالى أيها الأحبة ما لن تندبت التاغن وحي إلهي كسفين يا قالضو هدي للك أي لهان لهايين والله يلاهدو اسكفرت واسكفر الله يندبت هايساتا ما أنت أدونك حولا ولا شعلي لكن ما أنت عذاب كعر ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به با إلهي نفط كستاء الظلم السميسي هذا إلهي هيدلك وحيا لبا لافتدت به واسكفر الله يدبا إلهي ولا إلهي وحليه قالك هدو دلك يلبا لابكي بليه إسنا واسكد إلهي واسكفرته والذين لم يستجيبوا له لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه دلك إياه إن كلون لك هدي الله سيو لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب بل إلهي وحكوت المامية دلك مقيو ذهب ما هدلك وقول يسقوا ذهب إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به حتى هدوها يستبى إلهي إليه دلك مقيو ذهب أو إذا هذا انتهى اللي قاضوا عنك ما انتهى اللي قدايو عيدك الدين ما يستبى إلهي أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين واركوها عذاب كل البيلين عذاب وحلحوية وحقوبة عيدو هيليسية عيدو قرقارتنا يالا مايان سيدا وقيد بالنبي حلي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري كي الله يجاء بالكافر يوم القيامة
فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به ما أنت قيامات قال خلك نبا إلهي إليه سيد النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام ما أنت قيامات قال خلك هنا مركزا وحلقوا هذا ورهدا دولك مجيء ذهبا هيسن لهي ما أنت ما يسكفرن لهي فيقول نعم هابوا إلى هذا ويسكفرن لها فيقال له وحلقوا جوابه قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك هران كو ويديه وحنتا كفضد مركا دونيدا جوجتي دول مغيو دهبا يسي كومان اورن با الهي لي مركا دونيدا جوجتي بس عابد بان كو يدي كاسو كفضد ان دول مغيو دهبا كينتو تي فضوديد با لغا واي waxba ciid maanta ka dhageysan meesha la leeyahay wax ka fudud baad bixin weydaye xaalka gaale إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامية ضدك انتو اتشعلا حتى هدي الله إله هلا عذابه وهذه هلو سيدا ينو أقبليه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى وجعل يدنبيله با إلهي سبحانه وتعالى ما أنت عذاب كذا ينو سكفر طوش على الله حاسكيسي إيا ولالكي إيا تلكي إيا قبيلكي إيا وحو شيغنا يوردن إيا دولك أوردن هدو سكفرا كريا وسكفرا الله سيو يساقو بدبادو لكن تاسي ما ترتبا إلهي سبحانه وتعالى قضبك الشنادة إنو تلماما إنو ee sheegaya maalintan dhibteedu intay leeg tahay waxa kamida maalinta dherarkeeda xataa hadaad cadaabka ka badbaado maalintan shidadeeda haddaan alla ku badbaadin maalin fudud maaha waayo dee afkaynu ka leenahay waa maaline 50 kun oo sannadood bay u dhigantaa afkumaynu ka leenahay waa maalin qiyaame laakiin maalintaasi xisaabta ay joogto إلهي القرآن كوحلي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة آية تسال وتلمامية آية كلنا إلهي وحكوت المامية محي 50,000 سنة مفسرين تبربا وحيد هذا مال انتاني وا كنت كونو سنادود هدنا كنت كاكونا سنادود مال مهيدو مال انتي با كون سنادود مفسرين تبربا صايد هذا أيا كانت مالين تاني ومالين كدير مالمها عادقة مالين كماكم صنضوضة ويا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يبا إلهي لي إيقو حيوار كيان إني دودهي إيقو حيوار كيان محي إني فقتهي أنقنا وحنوارقنا با إلهي لي مالين تاني إني دودي قيامو ومالين دوبا إلهي لي لكن بني آدم كنت مرك آخر الله وشكيه وحسرها وقت هذا يستطيع قيامه بريها المجره وردك قيامها كو دعيا مالتي نفتك بحضه ضدك كلا قيامه هذا وحبك كما قالين هذيك السؤال شيء عذابته يا جنة يا وعولبا وحيكون بلاب ميان مالتي نفتك بحضه هذوك السوق ما يسددك كلا انت اللي سوها لاغي هذا با مالتي ندرر كده وعدعدو soo dhowdayo dadku dhididayaan oo qof waliba dambigiisa in laga dhididayo oo qofba dhididku meel u joogo oo isdixaam jiro oo ciriiri jiro oo kuleyl jiro yani maalinta tani waa maalin غير caadiya cadcadu way dhowday marka dadku oo dhami way dhididayaan laakiin waxa dhididaysa ala qadri dambak dambigaagu intuu leega kolba meeshu waa ciriiri oo dadku oo dhan baa wada tuban إلهي عذاب كيسينا والله كينا وينا دوا جهنم كلول وكوسو دوي وهذا دكا كلول أيانا 70,000 ملك يجو تشيد أيام بكينا جهنم نوا شوكتا بقى واتشرة دبتنا دوني دي بقف كان هدي والصورة كقاطو وحير بيلا نقونسا دوني الصورة دي إلهي وحلي ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ما أنت لصو حاضريو واحد مودابا إلهي لي الدنيا ديناني تشوغين ساعة من نهار مويانا وحكالي ساعة مالنا
haddii lagu yidhaha war dunidii intaad joogtay kaannahum yowma yarawnaha lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaaha waxaad moodaabaa ilaahay leeya adduunkii dhammaay ay ku soo noolaayeen in yaroo barqaagali raabagali dambe wax yaroo ka mida inuu yahay rabbi wuxuu leeyahy naxnu aclamu bima yaquuluun id yaquulu amhaluhum طariiqa in labithtum ilaa yowma ka ugu taqdiirka fiican leh ayaa wuxuu odhanaya war malaa dunidaynu ka nimi maalin waa dhammayd wixii oo dhammi waxay la noqonayaan kii ugu fiicnaabaa wuxuu leeyahy maxay malaa maalin waa dhammayd yowma taquumu asaacatu yuqsimu almujrimuuna maa labithuu hayra saaca mujrimiintana ilaahay wuxuu leeyahy waxaabay ku dhaaranayaan saacad waxaan ahayn inaanan joogin hal saac unbaan dunida joognay bay leeyihin dhibtan maalintan dadka haysataa waxay ilowsiinaysaa sannadihii iyo waagii uu soo noolaa ee dunidoo dhan dabeetana waxay ula muuqanaysaa inuu saacad noolaa saacad waxaan ahayn maanan noolayn bay leeyihin dee waa ka ilaahay ku tilmaamaya in su-aashaba la weydiin doono kam labistum fi lardi cadada asiniin war dunidii imse sannadood baad joogtay 50 60 70 maxaad joogtay qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadi maalin ama maalin badhkeed baanu joognee kuwii wax tirinaya bal ha la weydiiya bay leeyihin ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa leeyahy dee nolosha dambe marka loo eego wax nafle may ahayne in labistum ilaa qaliila in yar unbaad joogteen low annakum kuntum taclamuun haddaa wax garanaysaan in yar unbaad joogteen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qiyaamaha dhibtiisa waxaa kuugu filan adduunkana aynu joogno oo dhammi inuu isbeddeli doono adduunkaynu joogno oo dhammi hadday cirtay hadday dayaxtay hadday cadceed tahay qorrax tahay hadduu dhul yahay hadduu buurayey hadduu bad yahay hadduu barri yahay hadduu bannaan yahay wuxuuba waa isbeddelayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa cirkanna in la duuduubi doono dhulkanna la qaban doono wamaa qadaru llaha xaqa qadrih waalardu jamiican qabdatuh yowma alqiyaamah waassamaawaatu matwiyaatun biyamiinih subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun may weynaynin ilaahay weynidu xaqa u leeyay baa ilaahay leeyahy dhulku dhammaantii ilaahay baa qabanaya maalinta qiyaame cirkana waa la duuduubaya sida waraaqda loo duuduubaa loo duuduubi gebigiisaba marka hore wuu dildillaaci oo wuu jelci waxaan ku jiroo dhan baa soo daadan xidigaha iyo dayaxyada iyo waxaanoo dhan baa la tuuri kadibna sida xaashidaa loo duubi saa rabbi tilmaamayo yowma natwi assamaa'a ka tayyi sijilli lilkutub kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduh wacdan calaynaa innaa kunnaa faaciliin sida loo laalaabo waraaqda baanu u laalaabi doonnaa baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala waa ka nebigu tilmaamaya yaqbidu allahu alarda yowma alqiyaama wayatwi alsamaa'a biyamiinih uma yaquulu ana almalik ayna almuluuk ilaahay baa dhulka qaban doona cirkana waa duuduubaya dabeetana wuxuu odhan doonaa ilaahay ana almalik anaa boqora maaya dadkii dunida boqorrada sheegan jiray riwaayadda saxiixu muslimkuna taa hore saxiixaynkay ku wada taallaaye saxiixu muslimka taana wuxuu odhan doonaa ana almalik ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun uma yatwi alarda bishimaalihi ya'khuduhunna biyadihi lukhra aw ya'khuduhunna biyadihi lukhra riwaayad kale say tilmaamaysa uma yaquul ana almalik ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun ilaahay baa wuxuu odhan doonaa war meeye kuwii boqorrada sheeganayay meeye dunida dadkiis waa weynaynaya meeye duqaaddii iyo kuwii kibray cid u jawaabaysaa ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala isagaa isu jawaabaya dhulkanaynu joogno ilaahay wuxuu leeyahy faidaa nufikha fi suuri nafkhatun waaxida waxumilat alardu waaljibaalu fadukkataa dakkatan waaxida fayowmaidin waqacat alwaaqica kalaa idaa dukkat alardu dakkan dakka dakka waxaa la yidhaha marka wax la tubo ilaahay wuxuu tilmaamayaa dhulkan dhagxanta iyo dhul adag iyo didib iyo waxaa leh maalintaa in la budlin doono la baabi'in doono isaga iyo buurihiisan iyo waxaan oo dhan
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وما لندلكو قلقل مدونه زلزال كدعي دونه إذا زلزلت الأرض زلزالها دلكو مركو قرير كيدي با إلهي لي إمكا هل وضن مركا قرير يري كدعه oo waxaan lagu qiyaasay rakhtarka la yiraahdo 7 buu gaaray baa la yiraahdaa magaaladii buu ay dunto dhul gariir 7 ah imso socdaa baad u malaynaysaa matter of seconds ilbirqsiyo socda dhul gariir yar baa dhaco ilbirqsiyo socda dabeetana magaalooyin dhan baa baabaa maalintan qiyaamada ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala kow buuraha waa la tumi doonaa dabeetana waxay noqon doonaan kathiban mahila الكثيب المهيل وحلا يرادا عيد مركاد إن قاضي أنت كلا صاد دررت صايع عدا بورتي دميدة أتكيد مركلا دقيقيو وحين نقول دونتا سيدا ميله أنت محدة مركاد عيد قاضي عيد كلا كصاد دبا عررته ساسو كلا نقول دونتا هدو به هدنا الله عفوفي دونا هدو به هدنا تمر مر الصحاب هل كضرورته مرتو يضبورة أي مردونا بوروه أصليا وحيا هايين أوتاد أما رواسدة دولك وحا حجينا يوديدا ينو قلقلمو أي بوروين وقتن هو سوغوشيرا scientifical style مكالا شعوه دولكي بوريه الرواسدة هاي قتن كواها مركا إياقو بابان حاسو هرايا وحاسو هرايا دولكي ينو قلقلمو مركا إلا قتن ندي باكا قوائي ينو قلقلمو قلقلن كاسوحو نقونا يا وحي قديه سيكوشيرا يوردن ينو دبدا وصوصار إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إلهي مركاو حلي دولكن والله بابينيا وتكون الجبال كالعهن بوره حين نقونا ينبا إلهي لي كالعهن صوفك حولها دقرتو دا مركا الله قروه دبتنا الله تميلا فرسمايو إلا قسمايو صوف كان مريها لقطوله وول صوف كان مرضى لقطوله ووحيرة خفيفة وفهدات إلى هذا هو الراعية إلهي وحلي وتكون الجبال كالعهن بوره وحين قرية سيد الصوف كاسيوكالي آيات كلا إلهي وحلي وتكون الجبال كالعهن المنفوش عهن قيل أفوفي أمل نفشيي أكلوا صباحيا بوره وحلي وإذا الجبال سيرت مركبورا لسعود سيو وصيرت الجبال فكانت سرابا وإذا الجبال نصفت ويوم نصير الجبال وترى الأرض بارزة مالنت نبورها سعود سينبا إلهي لي وأدركتان دولكو السمنبا إلهي لي دولكو بارزة وحوح قرياكم يالين بنام بنقنيا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا waxay ku weydiinayaan baa ilaahay leeyahay buuraha waxa tiraahdaa rabbi baa baabi'inaya buuraha waa la saydhinaya waa la tirtiraya dabeetana waxa laga tagayaa banaan siman iyadoo ah oo meel godan iyo meel taagan toona aan lahayn badahaynu arkayno dhammaantood way iskedinayaan laba shay buu quraanku tilmaamay wayda albihaaru fujirat badaha marka la qarxiyo iyo wayda albihaaru sujirat badaha marka la huriyo kow culamadii hore waxa ku fasirayeen tafjiirka in la isu faruuri doono biya macaan iyo biya kale oo badoo dham isku darsami doonto dabeetana biyuhu ay guban doonaan damaantana waxaynu naqaanaa atamiska inta la qarxiya waxa ka soo baxa maxay hubkan waaweyn ee atamiga la sheegaya wax la qarxinayo dee biyaha atamada ka samaysayeen haddii ilaahay qarxiyo meeshuba way baaba'aysaa ilaahay wuxuu leeyahay markaasi subxaanahu wa tacaala waida albihaaru fujirat buuraha marka badaha marka la qarxiyo ama badaha marka la holciyo haddii ase nuclear loo qarxiyo dee baddu dabbay isu beddelaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa baddaasina inaanay sideedii ahaanaynin waxaa ilaahay tilmaamayaa cirkan quruxda badan leh midabkan leh saatani inaanu maantaasaa ahaanaynin yowma tamuuru samaa'u mawra maalintay samadu socoto ida asamaa'u infatarat ida asamaa'u inshaqat waadinat lirabbiha waxuqat maalintay
عدعده سمدوا أي دلدل عضبة إلى هيت المامية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ودلدل عسابة إلى هيلي سمدوا دبيتنا وحي نقونيسا واهية أي ضعيفة مدلي دته أوش الإحسان بين نقونيسا دلدل عقورا ما هي حتى مدب كيس بدلية سمدا إنه مركا إنه يقولنا بلوغا مدب كاسلة هدو إلهي وحقوت المامية عصوص نقون دونتو ومركا سيلفر كلا الشيلو لدلالية سيدة دو كلا إنه نقون دونتو مدب بيس بدلين نقون دونتو فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان با إلهي كت المامية سبحانه وتعالى وهي علماء بركو فسيران إني فرس الورد يو كلا نقون دونتو فرس الورد واحد هذا فلاور وقتنا أصفر نغضة وقتنا عصان نغضة وقتنا يعني مدبدي سايس بدلا عاد كل الكقبوق ومركو كله ساسو كلا يسبضوا نقون دونتا ووردة كالدهان بين نقونتا ألوان أي صابح دونتا حالة الماما يردف تدعي دونتا عاد أركسان لا ضوضو بدونه جيبي جيد بقى إفكادو رتجي دونه ضيحين للدمين دونه حدقها إن لضادين دونه لبختين دونه إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال صيرت وحي لهي تلمام يا حولها كوي لوغو تشعلين لغا دقاقي دونه إذا العشار قالي طبانك بلوضها صدحي طبان بو قالو كنا لا مركو سودنا وادي ويا ومركي قال شرو تشعلينا ليلاليا نفكا إنان حولنا عيد الدنين إنان كدقاقي دونان وحي لهي تلمام يا صدحنا الصورة ضد نبي الشاقي إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت إذا الشمس كورت نكي الربين قيامها أقادة صدح ده آخر يا أبو نبي عليه الصلاة والسلام صدح ده تنوحي كاسينيا كون كان يسدو بربورة الصورة كاملة صور دن موقال عجب قبه أي إلهي سبحانه وتعالى كت المامية فإذا برق البصر وخسف القمر إلهي وحت المامية إذا الكواكب انتصرت وإذا النجوم انكدرت وعركا إيا وحا شراء أردمي وادميان ملائكتي كو مغنين وسودا دقيسا نولش أردمي ويسبدليسا دادكونا صدح قيبود بو نقون دونا قالوا كفرادي دبتا هيد إيا منافقين تندى آخرا وقالوا وركضوا وعدانا يا إلهي إيا دادكي موحدين تاين لكن عسيان كالليمي إيا دادكي أتقيضا هاي صالحين تواوينها إلهي سبحانه وتعالى كوا قالت حالكو دوحو كت المامية يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وهذا حستا مالين با إلهي لي كصبح الدونان حبالها يقول دقدق يمرك الله يارو يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر مرك الداعي قاسي يارو يوم ينادي المنادي من مكان مركو كنا واغي الله يارو وحي صبح الدونان يقول دقدق كأنهم إلى نصب يوفضون با إلهي لي يدو أدمودو أنصابتو دي وحي عابدو جيران سيدي ومقيقنان جيران sidii oo meel sanama looga yeedhay ayay u carari doonaan baa Ilaahay leeyahay iyadoo indhahoodu khushuucsan yihiin khashi'atan absaaruhum taraquhum dhilla dhammaantood mugdi daboolay oo dawaka aayad kale Ilaahay ku tilmaamaya kaannama ughshiyat wujuuhum qit'an min al-layli mudlima siday u eeg yihiin habeenka gobol ka mid ah moodaa inta la gooyay wajiga laga saaray baa Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala وحال كت الماما يا دتك كان فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر سيدي كورنكرة لسوداي كورنكرة ده ما تغني أيحو مركو بيت بردولك كواسا مركي ببغلال كوانام بيضو آسا هذا مركي يدلعضو وحما سيدا وصايا عنقد قلوب بعد وعيدك بدنك الصباحية iyagoo aad moodo koronkoray soo baxayaan baa Ilaahay leeyahay kaanama ay ayax la soo daadiyay yihiin
مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر يقول الكافرون هذا يوم عسر إلهي وحلي يقول أدق دقي حق الله غيري وقال كولي ما انتوا مالنا ذاك وحي إلهي سبحانه وتعالى إنه تلمامية إني على عالي دونان مالين تطان قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إنكو على عالي دونان ورياء ميشان كجرين نغا سو ساري halkaanu jiifnay yaa naga keenay inay ku calaacali doonaan baa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tilmaamaya waxa Ilaahay ku sifaynaya sifaadka ay leeyihiin oo dhan aynu wax badan ka soo tilmaamnay idan ayuha alhibba dadka waa loo digay waana looga digay maalinta tan waa maalinaan حميم الشفيع وحكو آني تشرين ورقو قالوا ما إلهي سبحانه وتعالى كفقاد ومال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ومال بإلهي وكت المامية أي سكحد حدين وولبا ay gashayn dhar naxaas ka samaysan naxaastu waa waxan markuu ku gubto iyadoo kulladii lagu shubo waa kula tagaysa surwaalkiisa ka samaysan baa Ilaahay leeyahay wajiyadoodana naar baa daboolaysa idan rabbus samaawaati wal ard oo wax walba awooda ayaa dadka kan cadaabayo ciqaabaya waa maalinta cadceedu soo dhowdahay ee qof waliba dhididayo intuu dambaabay in leegu dhididayo سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كنت المامي ولذلك بقى إلهي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون تدك وقدك بقى إلهي ما لنت بروقدها ما لنت على الكدتك وقدك ما لنت يكون واقدنا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ما لنت أيكوا الظالمين تقعنت قنيني دونان با إلهي لي يقوكوها لان هليا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا بل من جتكي نبي محمد راع جتكي أنبياء ما انقاضوا بل ما أنا نهبل صاحب كردقنن مد امتحانه اللي ميبك عليا وايدا في إلهي ذكر جيسي انتو ايمي شيطان كنا مد وحوش يبو هذا ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون بإلهي ما أنت قيامه دعوه كوي مجرمين تهيقوا قوستان بإلهي لي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ما أنت بإلهي لي كوي قالوا بي الرب قد عاسيي waxay jeclaysanayaan in dhulka lala sibo marka xoolaha inta loo garqaado la yiraahdo kunu turaban ay iyaguna waxay jeclaysanayaan alla ya xoolo idin ka dhiga ya sida xoolaha loo galay idin galo dhulka idin ka mid noqda ayuha alhibba waxaan ka warramo qura wax ka mid ah aayadka quraani waxay ka tilmaameen koonkani sidoo noqonayo iyo hawlka iyo dhibta taagan waxaan ka warramo qura bacdu sifaat quraanku uu ku sifeeyay maalinta tan waxaan ka warramo kaliya in yar oo kamida sifaadkay kuwa gaaleed leeyihiin laakiin kama aynan warramin naarti kama aynan warramin xisaabti kama aynan warramin miisaanki kama aynan warramin dadkii xawdka laga celinayay kama aynan warramin mawaaqiftii tirada badnayd ee aakhire ee dambaysay in la yiraahdo ka warrana quraanku dhan inay ku dul akhriyaa bay noqonaysaa kama gaarsiinayno laakiin asalku wuxuu yahay war maalin weyn baa dambayso dadku uu moogan yahay quraanka haddaad sidaa u akhridana lacalla bayj ay ka maqantay inaanu jirin laba bayj oo kasto iska soo horjeeda wax qiyaamaha ka saabsan waa ku jiraan
إلهينا السدو إنوغو ورما عيد إنوغو ورنتو كلمة جرتو إلهي وحينوغو ورما يا إنتا إن لينوغو ديغا مالنتا تن إننا مالنتا إن دقلي إبينو كتاغني وحين ربنا إننا مقال أو أرق وحين ربنا إننا أدون كان ونكوريغنا يا إنتا تالا محا حولا للشقية محا تعالين لبرتاي محا دمر لقرساي محا عرور لدلاي محا إنتا يري أدونك إننا يكوريغنو وانا الله با انت تجاريوتو inaad maalintan tagi doonto wallahu ba nin dadka cibaadaysta kamida waxa arkay nin dhalinyaro oo qoslaya markaasuu yiri wariyaahe miyaad maqal buu yiri inay quraanka ku jirto wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya miyaad quraanka ku arag buu yiri إن إلهي لي مد إذن كم مد مجرو إلا إيا النار تحقي دا والو أروريني دي جيتك سراد بكدو ليالا نار توايسار كيسان ميا لغوشة يقول يرين إن قلي سو نار تاس ميشي دا سوار كيسوا لغوشة يقول إنت كبت بادي سينا الطهي ميا لغوشة يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية إنت بدبادي سينا تكوشر تادقا يا كوشة يقول بحد غصل إيسان ما إننا نوجين أنت بدبادي سيري لكوشرنا إلهي سوى كبرينا سبحانه وتعالى لكن وحا هبون وفق مؤمن كاهي الدون كان النبي قوة حكوت المامين لو قلنا ولا كعابر السبيل سيدي قف جد قوينية وحا إن بدن لينا فرين نودي يرقرنو مالنتها قيامة فعلا دادك بدبتا بدن أركي مايان dadka bad nabigu wuxuu tilmaamay marka cadceeda la soo dhaweeyay dadku dhididayeen naftu haysato inay arshur rahmaan harsanayaan xadiis ba soo aroortay tilmaamaysa dad maxay iyagu arshur rahmaan hoos harsanaya marka dadkan kale sidaan u dhiban yihiin imaamkii caadilka ahaa qofkii dhalinyarada ahaa ee taacada ilaahay ku barbaaray aan ka wacweecanin qofkii sadaqaadka la baxayay ee gacantiisu furayd ee midigtiisu waxay bixisaan bidixdiisu ogaanaynin qofkii masaajidda ku xidhnaa ee intuu tukado salaad ku sugaya qalbigiisu mucallaq masaajidka ku ahaa qofkii intuu cibaadaysto iyadoo aan cidina arkaynin keligii ilmeynaya ilaahay dartii la ooyayay qofkii xumaha zinada iska daayay ee ilaahay dartii uga tegay kuwaas buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay labadii ilaahay dartiisu jeclaatay aan dan kale isu keenin waa kuwa carshur raxmaan harsanayuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cagsigeedana waxaa la tilmaamayaa kuwo sidaa u cadaaban oo qaawan oo kabala oo wax waliba haysata caaisha mantiqii duniday ku fakaraysa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa oo dadku miyaanu is arkaynin rag iyo dumarba hadday qaawan yihiin nabigu wuxuu yidhi caaisha arrinku intaa ka weyn dad seega iyo baabkaasi maanta ma jira buu nagu u tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam balada taagani waxaanaad ka fakaraysa ka weyn buu nabigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam indhuhuba waa ku engegayeen maxaad arkay naftaa qof walba haysataa idan darsiga kan danta laga leeyahay walaalayaal waxa weeyaan inaynan ilaabin maalinta tan qofkii maalintaasi xasuusani waxa hubantiya in cibaadadiisu badanayso waxa hubantiya in xumihiisu yaraanayo laakiin bini aadamku markuu is-ilowsiiyo ayuu wuxuu doono sameeyaa laakiin qofku intuu xasuusaya ilaahay inuu ishortaagi doono wax kasta uu sameeyeyna in la weydiin doono maalintaa dhibta badan lana inay ka horrayso wuu diyaargaroobaya qofku zaad iyaduu sii qaadanaya khayru zaadina zaadu taqwa baa ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamay وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين